بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم ولا الله سومالي ميلة جوجتان بإله سبحانه وتعالى دكان ما يلو عدي بدبك الله كقاضو عدي دن له وفي انت بان الله ديقو انت بوقت الله بوكسيو انت دمتي الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستا انغنا الله نوغا دبا نحريستو دالكا دينتا ددكا iyo dawladnimadaba ilaahay subhanahu wa ta'ala hayno badbaadi maanta waxaan ka hadlaynaa laba qodob baryahan mashquul baan ahaa howlaan ku jiray marka isu soo noqod wacan waa bishii abriil 16keedii waxaan ka hadlaynaa laba qodob. qodobka koowaad waa go'doomintii Mareykanka iyo dhaqdhaqaaqii Trump iyo waxyaabihii ka dhashay kelmadan ka oran doona. qodobka labaad dawladda Soomaaliya iyo maanta sida dawladnimadii ay ku sugan tahay iyo meelaha la kala taagan yahay iyadana kelmadan ka oran doona. Mareykanku waa tii uu go'aan ku gaaray inuu go'doomiyo ama uu u dhigto isbaaro wadada Hormuz ama marinka Hormuz ee uu yiri wax galaya iyo wax ka baxaya dekadaha Iran haba yaraatee ma jirto waa go'doominaya. Arrintaas oo adduunku aad uga dhawaaqay loona arkay inay tahay dangerous sida ay sheegtay China oo tiri go'doominta uu go'doominayo Iran waa dangerous, waa arrin khariban. laga hadli maayo inay sharci darro tahay, waxa laga hadlayaa inay khatar ku tahay amniga caalamka isla markaasna ay sababi karto wadamo badan inay Mareykanka ishardiyaan oo fooda isgeliyaan ayaa ku dhamaatay burbur iyo fadeexad iyo inuusan Mareykanku awooddaas balahayn. hadda ka hor dhowr jeer aan sheegay Mareykanka waa la ogaaday in la iska dhicin karana wuu ogaaday, isna waa ogyahay, bootadiina been bay noqotay. markabkii ugu horreeyay ee maray wuxuu noqday markab kruuga saaran ay yihiin Chinese calanku watay uu yahay calan Malawi dalka Malawina ay yiraahdeen nooma register garaysno ma naqaan Malawi badna male haday cid wadata calankeeda ka kuma jiray dhaheen. marka saddexaadna markabku wuxuu ahaa markab horay ay America u cuna qabataysay kana shaqeysta black market ciidanka ama dadka saaran oo shaqaalaha ah markabka oo dhan gabi ahaanba ay yihiin Chinese. Mareykanku waa ku dhici waayay inuu taabto maxaa yeelay China dadkeeda lama taaban karo. China arrinta way cambaaraysay. China waxay sheegtay inay tahay dangerous waxa uu sameeyay. waxaa ku xigay oo isdaba galay maraakiib aad u tiro badan. marka 24kii saac ugu horeeyba waxaa maray baa la yiri 24 markab 48 saac ugu horeysay 24 markab oo Soomaali ka in lacagna bixiyay oo siiyay lacagtii ay ku mari lahaayeen wadada Iran siiyay. mar wixii lacagta waxa laga siiyo ninkii waa niman deganayn nin waalan marbuuba isagoo Jesus iska dhigaya soo galay dad aad u badan ay ka caroodeen oo diinta Kirishtaanka aaminsan oo dhar intuu gashaday Nabiyullaahi Ciisa alayhi salaam iska dhigaya oo sidiisii wax u daaweynaya oo waxbaan dadkan heel gareeya. waxa kale oo war weyn ah ra'iisul wasaaraha Spain ayaa wuxuu ka degay dalka China. waxa uu la galay heshiis rasmi ah dalka China oo isugu jira wax walba. wuxuuna sheegay oo si calan ah oo kore u sheegay wixii la oran jiray North Atlantic ama NATO inuu dhintay, NATO inay dhimatay laguna kala tagay, Mareykankuna uu burburiyay. isla markaasna wuxuu ku baaqay dadka Yurubiyaanka ahi inay is haystaan oo aysan kala daadan. ogaada NATO waxay sharaf u tahay, waxay hadal wanaagsan oo soo baxay u tahay dadka muslimiinta. waxa loo sameystay muslimiinta lagu laayo ilaa ay hadeer meelaha ay ka howlgaleen oo dhan waa meel muslim oo ay dhibaateeyeen. meelaha lagu weeraray waxa kamid ah Iraq oo lagu burburiyay dawladnimadii, waxa kamid ah Afghanistan oo aad ogeydeen inay intaas oo sana haysteen kadibna ay si fool xun oo fadeexada uga baxeen, waxa kamid ah Libya oo ay ilaa hadeer dawlad la'aan ka taagan tahay iyaguna ay sababeen oo burburiyeen dawladii ka jirtay. Sanchez wuxuu sheegay ama ra'iisul wasaaraha Spain wuxuu sheegay in lagu kala tagay. waa war wanaagsan, waa ku farxayna. muslimiinta dib ku ahaayeen iyo caqabad muslimiintu inay sameystaan mid la mid ah iyaga u taalo laga rabaa. sidoo kale Giorgia Meloni ra'iisul wasaaraha dalka Talyaanigu
waxay iyaduna tiri gabi ahaanba waxaan xiriirka u jarnay contractiyadii difaac iyo hawo iyo wixii naga dhaxeeyay dhanna aan kansalnay wixii expire noqdayna aan dib u cusboonaysiinay yahuuda ogaada Israa'iil adduunkii baa ku soo ciriiri noqday ku soo yaraanaya waxa la joogaa xilliyada ay baabi'i lahayd ma foga waa in ayaamo nin waalana waa u taliya oo ku khasban inuu dagaal wado hadduu dagaal waayo xabsigu aadaya marka wuu iska wadaya hadduu kuwan hadda Iiraan u shaqeey weydo labada usbuuc kadib wuxuu rabaa inuu dagaalkii dib u bilaabo oo dib u baabi'iyo Iiraan wuxuu kaloo rabaa inuu baabi'iyo wadamada khaliijka oo ay ku burburaan reactionka iyo isdifaaca Iiraan ay ku baaba'aan dagaalkaas oo sii socda wuxuu cunaqabatayn ku yahay dadka ku nool khaliijka noloshoodii oo dhan baa burburtay nolol mukayf ku dhisan iyo dhalooyin iyo qarsho bay ahayd umana adkaysan karto dagaal iyo weerar iyo difaac waana sida uu rabo marka hadda waxa ku soo biirtay Talyaaniga oo xuduudoodan xiriirkoodan u jaraysa Israa'iil Sanchez mar hore xataa safaaradiisii xirtay Spain teedina ay ka qaateen waxaad ogtihiin wadamada tiro badan oo Canada kamid tahay inay aqbaleen ogolaadeen itiraafeen Falastiin wadan la yiraahdo inuu jiro macnaheedu maxay tahay Israa'iil dhulka ay haysato sheeganayso waxa kamid ah qayb ay leedahay dal la yiraahdo Falastiin oo ay itiraafsan wadamada tiro badan Ingiriisku kamid yahay Faransiisku kamid yahay Spain kamid tahay Australia kamid tahay Canada kamid tahay Mareykan oo baadiiday intii kale oo dhan iyo wadamo yar yar oo aan jirin oo macna lahayn oo isagu isticmaalo tobaneeye ah oo qaarkood wax jiraba aysan ahayn marka ciriiri adduun iyo kii aakhiro u dhimana waa sugaya ciriiri adduun bay gashay Israa'iil hadda waxa la baasiyay waxa baasi waayay ogaada baarlamaanka Mareykanka waxa iska lahaa IPAC Israa'iil wixii biilkii la keeno Israa'iil ku saabsan ka hadal la'aan buu labada golaba ka baasi jiray dimuqraadi iyo republican kulli waa ka baasi jiray waxa diiday intaas oo qof oo dimuqraadi ayaa diiday waa baasi waay waa dhacaya hadduu xataa baasana waa kala jaban yahay horey uma dhicin waa bilow waxaan idin sheegay siyaasadda Ameerika waa laga soo booday Israa'iil dadka shacabka ahi ma maqli karaan banaanka la taagan yahay qaarkood waxay leeyihiin war waaba necebnahay Israa'iil iyo wixii magaranaysa oo public ah waxaasi wax jiray maahay 2023 October 7 yaa loser ah marka la qiimeeyo Israa'iil baa loserka ugu weyn ah waxay khasirtay siyaasadii waxay khasirtay rabitaankii caalamka oo dhan waxay khasirtay taageerayaashii iyo asxaabtii ay lahayd oo dhan hawada Yurub oo dhan wadamo badan oo kamid ah baan ogoleyn hawadooda in la maro iska dhaaf adduunka kale iska dhaaf inta markaan kaga gudbo qodobka labaad dawladda Soomaaliya oo ahayd isu keenkeen kadib markii la burburay mudana ay dawladnimadu maqnayd isu keenkeen la isugu tagay arta ka dhalatay israbitaan umadu ay israbto waxa la isla ururiyay mid kale laga dul furay Nakuru Eldoret la isugu tagay la soo amaamuday heshiis bulsho ah wuxuu ku dhisnaa 4 sano kasta in doorasho dhacdo doorashadaas baa lagu wada joogaa dastuurkaas xababarshaha ah oo quraarada ah baa lagu wada joogaa waa heshiis bulsho dawladnimaduna waa social contract xoog baan ku haysanaya buu Xasan la soo baxay waxa la ii sheegay oo nin wasiiradiisa kamid ii cadeeyay in ay ka go'antaa inuu ku dagaalamo waxa kaloo la ii sheegay oo nin saaxiibkiisa ii sheegay inuu yiri Saamiya Suluxu wadan aan laga rabin bay iska haysataa waana gabar Ismaaciil Umar Geelle waa iska jooga xoog buu ku jooga dadkuna ma rabaan Musafeni waa jooga ha naga dhigay dimuqraadi iyo qashin waa haysanaya xoog baan ku haysanaya hadda maxaa soo kordhay shacabkii guryahoodii inuu soo dhigtay markuu dhamaystay haday wax ka hareen wax badan aysan ka harin tii dawladda inuu soo dhigtay dadkii hantidoodii gaarka ahayd inuu Xasan soo dhigtay Xasan su'aal baan weydiinaya dadka agagaarkiisa joogo qabashadiisa lehna su'aal baan weydiinaya Xasano waxaan aboobaysi iyo waxaana isku dayay sidoo dawladnimada inaad burburisid kadib markii intaas la isu soo ururinayay oo dadka la isu soo bariyay oo wax fragile ah oo aan jirin oo beenbeen lagu wada joogay hadaa wixii beenbeenta ahaa burburisid maxaa ku talagalaysaa shakhsiyan maxaa ka faa'iideysaa madaxweynihii ugu dambeeyay oo Soomaaliya ay yeelato inaan noqoto
maxaa ugu faraxsan tahay maxaa kaa khaldan maskaxiyan ma dhan tahay ma miyir qabtaa wixii alla kaaga calfay oo dowladnimo ahaa iyo madaxnimo iyo xukun 9 sannadood baad maraysaa waxa kuu dhiman aad raadinaysa muxuu yahay mandate-ka waa kaa dhamaaday maanta waxay soo saartay Puntland warqad ay leedahay baarlamaankii 16 bisha ayaa lagu jiraa wuu dhacay baarlamaankaas oo la rabay maanta inuu ka shaqeynayo doorashadii xildhibaanada jooga oo bisha dambe mushaharka qaadanayaan ay noqdaan xildhibaanadii cusbaa lama hayo madaxweyne maxaad ka rabtaa dalka ma Muqdisho u taqaanaa mise xoog baad ku wada qabsan kartaa kulligeed baydhabo ma ku sarqaantay mise aragti baa kaaga korodhay isku dayaagii hore oo raas kaamboni wax ma ka baratay ma ku kordheen aqliga maxaad damacsan tahay adiga su'aashaasan ku weydiinaya dalkaas oo is haysta oo hal ah oo doorasho wada galay oo doorashada adigu ay ku guuleysatay oo mucaarado banaanka taagnaa waxa oran jirtay hadallada ku hadli jirtayna aad taqaanid maanta kala aad lahayd nin naag uu furay aruur ka dhalayaa tahay aad lahayd midii miyaa taagan tahay dadkii kula socday ma yihiin danigaan hadda Puntland warqada ka soo tuuraya iyo kuwa magaalada ka dhex qaylinaya Cabdiraxmaan Abshakuuri ragga la midka iyo mucaaradka raggaagi ma yihiin muraayad ma isku fiirin kartaa miyirku ku soo noqon kara dib ma isu fiirin kartaa dalka inaad burburisid ma ka ilaalin kartaa dadka ma u danayn kartaa ummaddu inay dawladnimo rabtay iska burburisay iyadu dib rabtay inay u soo aruursato oo isugu soo noqoto oo is aaminto oo la isku qanco oo raali la iska noqdo processkii lagu jiray inaad burburisid dan miyaa kuugu jirta adiga shakhsiyan su'aashaas adaan ku weydiinaya maxaad ka faa'iideysaa xageese joogaysaa haddii la islaayo maxaa u xasuuqaysaa dadka shacabka ah dadka dhulkooda maxaa ugu haysataa lacagtaansi aa ka boobaysa intaa qof dhulkiis qaadatid oo qaarad qabuurahoodii soo saarto hadda qoriga saa u haysto sugaya May 15 diyaar u ah wada arabti laakiin alharbu sijaal yawmun laka wa yawm alayk maalina waa laga adkaanay maalina waa adkaanaysa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah hadaad xoog isbiday awood aad isleedahay dawladaha ku taageersan isleedahay I don't think Turkigu inuu kugu taageerayo dhulmi iyo gardarro I don't think Turkigu inuu rabo shacabku inuu naco oo laga hor yimaado oo afarta lagu wada fiiqo u malayn maayo hadaad isbiday ogow ilaahay baa guusha bixiya nasrigu ilaahay buu ka yimaadaa waad waayi kartaa ha ku tala marka xagee aadaysa let's say ina guuleysatid waa good news bay adiga ku tahay in laga guuleysto suurtagal ma tahay xisaabtaas ma ku darsato hadii laga guuleysto maxaa ku qorshe ah 70 jir adoo ah maxaa ku tala su'aashaas marka halkaas kaga tagay qodobka labaad odayaasha iyo waxgaradka uqaasha inta miyirkoodu dhaqan yahay inta aan dan kala hayn siyaasad iyagoo aan kursiga u socon qabyaalada aan dan kala hayn dalkii Soomaaliyeed oo midaysan iyo wada jirkiisii jeclaan lahayn ay arkaan agagaarka jooga ninkan odaga qabashadiisa leh maxaad ka damacdeen dalka suurtagal ma tahay inaad sabab u noqotaan aamuskiin uu sabab u noqdo garasha xumada xasan iyo aamuskiin iyo qabasho la'aantiinu ay sabab u noqoto wixii Eldoret la isugu keenay in lagu kala tago ma idinku aan tahay ma geydaan wax idin qabta ma tahay hadaysan idin qaban meelaya joogay bay leedahay bi waaye magiciin yuu halaabin magiciin xumaane intay istaagtaan ninkan ka qabta umada u sheega 4 sano lagu doortay 4 sano dhamaatay xil wareejin nadiifa oo dawlad dhiski xunka ahaayo xoogaa ku darka ahaa oo ku sii socdo baa lagaaga fadhiyaa la imo ku dhaha qabta ninkan gacantiisa qabta unsur akhaaka zaliman aw madluman buu yiri nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam walaalka oo hiili gar iyo gardarraba waxay dhaheen hada al madlum fa kayfa nansur al zalim kan garanay madlumka oo laga gardaran yahay markuu gardaran yahay ugu hiilinaa waad qabanaysaa biir dulmigaad ka qabanaysaa gardarradaad ka qabanaysaa
teendhadii lagu doortay bannaankuu taagnaa wixii qiyle ka baxaya waad garanaysaan maantoo kale hotel Maa'ida waad garanaysaan daljirka dahsoon buu qabsaday xabad buu mirinaayo ka soo tuuray dagaalkuu geystay waad garanaysaan qaar badan oo idin ka mid ah baa sacbinayo garab ordaay waxaa alla baday 4 sano oo toorjara inuu soo mariyo inuu iyagii qixiyo guryihii ay deganaayeen inuu ka burburiyo qaarkood inay ku dhintaan transfer maamo askari booliis oo shaqeeya oo dawladda u shaqeeya baa lagu ixtiraami waayay war hooya iga jiranay dhowr bari ii kaadiya inta hooya baskoonaysa waa idinka guurayaa 2-3 bari hal laysiiyo transferkii bay ku dhimatay sida la sheegay ilaahay ha u naxariiso subxaanahu wa tacaala qabta maalinta maanta ah baa taariikhdiinu qormaysaa si uun bayna u qormaysaa qabta cuqaasha iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo culimada tay isu tagtaan go'aankan go'aanaan ahayn go'aan idin geeya ka soo saara ummadda waxaa u rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dhaafiyo kala goyskan iyadoo bad qabta ishaysato mid ah aan la kala qaybin Israa'iil taa soo farabaxsanaysa safiirada soo magacaabanaysa ambaarayn afka uma baahna midnibay u baahan tahay iyo in la wajaho dawlad aan midaysnayn dad aan midaysnayn madaxweyne aan lagu kalsoonayn mandate-na lahayn cidina wax kama dhageysato caalamku saas u wada dhaqmaa waxaa la fiiriyaa qofka gadaashiisa yaa ku jira dad buu leeyahay taageerayaal u ah maya waa lagu buuqayaa qayla ku socota mucaaradkiisa ka badan muxaafidkiisa wax rabaa ma jiraan cid dhageysanaysa ma jirto walaa ambaarayn walaa hadal walaa anything laakiin madaxweyne mandate leh ummaddu ay soo dhisatay soo dooratay iska leedahay garab taagan tahay mandate cusub haysta waa laga dambaynayaa waa la ixtiraamaya saasaa caalamku u wada shaqeeya marka ummadda ilaahay waxaan rajaynayaa subxaanahu wa tacaala inuu marxaladda aan ka gudbiyo adag iyo dhulku meesha uu marayo intii ku dhimatay xasuuqan hadda ay dawladdu geysatay oo shacabka u geysanaysa iyadoo dhulkoodii ku haysata iyagaa dhulka leh ilaahay ha u naxariiso subxaanahu wa tacaala inta dhaawacana allah u boogadhayo xasanna miirka allah u soo celiyo iyo inta la shaqaysa oo raalli ku ah qaar baaba mushaharka sii soconayaa uu dan la yahay dalka iyo waddankana aan damba ka lahayn inahaasaan odhanaya wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh